madaxweynihii hore ee dalka Hindiya Dr. Abdul Kalam ayaa markii sheekeeyay qiso soo martay yaraantiisii waxa uuna ku bilaabay waagii aan yaraa hooyaday ayaa cuntada inoo karin jirtay habeen gaar ah ee casho ay samaysay soo saartay miiska wuxuu ahaa saxan subsi ah iyo rooti aad u gubtay waxaan sugayay inuu ogaado aabe oo wax ka dhaho arrinkaasi laakiin waa uu cunay isaga wuxuuna wax iga weydiiyay iskuulkaygii ma xasuusta habeenkaasi waxaan ugu jawaabay balse waxaan xasuustaa hooyo oo ka raali gelinaysa rootiga gubtay marna ma ilaabayo waxa uu ku dhahay gacaliso waan jeclahay rootiga gubtay habeenkaasi intaan aabe dhunkaday ayaan weydiiyay inuu jecel yahay rootiga gubtay gacmihiisa intuu igu soo qaaday ayuu igu yiri hooyada maanta oo dhan ayay si adag u shaqaynaysay aad bayna u daalanayd rootiga gubtay cidna ma waxyeeleeyo laakiin erayada aadka u daran ee naxariis la'aanta ah ayaa waxyeelo geysta wiilkaygiiow noloshu waxaa ka buuxa waxyaabo aan dhammaystirnayn anigu ma ahi qofka ugu wanaagsan wax kastana ma aqaan waxbaan hilmaamaa sida qof kasta oo kale waxa uu waayuhu baray in la aqbalo qof kasta ciladihiisa lana doorto in loo dabaaldego oo la dhiirigeliyo xiriirka noloshu way gaaban tahay jeclow dadka kuula dhaqma si wanaagsan una naxariiso oo cafi dadka kuula dhaqma sida xun ha ku degdegin inaad qof dhaleecayso sababtoo ah ma sameeyo ama uma fakaro sidaad adigu u fakarayso waxaa jirto xilliyo aadan garanayn waxa aad hadda taqaano